أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم walaalahey walaashin Amira aad baa idin salaamaya dhammaantiin soo dhawaada walaalahey ardada cusub maasha Allah ardada commentiga quruxda badan ii soo bixinaysa walaa aad baad mahadsantiin insha Allah waxa way casharkan qaybta afraad laakiin waxaan rabaa caawa in aan xoogaa aan fahamsiiyo arday aan wali aan xoogaa fahminaa jirta oo ku fahmi weysay waxa uu yahay waxa furan ama waxa xiran wuxuu kala yahay sababtu maxay tahay arday baa fahmi weys maxaan rabaa insha Allah sida uu fudud inaan ku fahamsiiyo walaalahey marka qaybtan I think laba qayb ma ka horeysaan jeclahay insha Allah saas you see kan waa part afraad qaybta afraad weeyaan so waxaan ka soo bilownay b waxaan qaadanay t waxaan qaadanay c now waxaan qaadanay d walaalahey haddaadan arkin aada insha Allah special casharka c wuxuu cashar aad iyo aad u muhiim ah oo aad haddaadan u fiirsan aad ku wareerayso insha Allah sida waad ogtihiin waxaa lagu markaad akhrinayso marna ka Allah marna s ahaan baa loo akhriyaa marka walaalahey casharkii kan ka horeeyay insha Allah aad marka insha Allah aan ku fahamsiiyo casharkan hadda sidaad ogtihiin marka dhawaaqa la suubinayo at least ugu yaraan waa inuu shaqal ku jiraa soma so a e I o u saasoma a e I o u marka waxaan ku iri marka xarafka uu yahay xaraf furan ma garatay waxaad ugu dhawaaqaysaa like a e I o u sida markaad ugu dhawaaqaysa alfabeetada ayaad u akhrinaysaa markuu xarafku yahay xaraf furan u yahay laakiin markuu xiran yahay dhawaaqu isbedelayaa meesha a aa ka leedahay waxay leedahay a meesha e aa ka leedahay waxay noqonaysaa e marka walaalay a marka uu maxaa iraahdaa uu saan yahay waxaad aragtaan d a d e d I d o d u so da di die do do d a da d e d d I die d o do d u do sometimes it's like that hamba loo akhriyo do a e I o u d a da da d e d d I die d o do d u do so marka intaa waan isla garanay waxaan saa ugu akhrinayo sababta halkani way furan tahay waxba kuma xirnaa ya way furan yihiin so marka inta waxba ku xirnayn ayaa waxaa lagu akhrinayaa sidaas oo kale laakiin marka xarafka inta uu wax soo jiro laakiin inta oo kale you have a d a d muxuu noqonayaa dad waxaad u akhrilays dad muu akhrinaysid da e da macnaha da a d dad you hear like not a like dead haddaa sida dan loo akhrinayo dead uu noqon lahaa dead maya laakiin waxaad akhrinaysaa dad waxaad u akhrinaysaa like eeda waxaad u akhrinaysaa uma akhrinaysa like a ma garatay sababtoo ah xarafkan halkan ku yaala ayaa ka dhigaya xarafka inuu isbedelo marka xarafkan waxaad u qaadataa inuu yahay iridii lagu xiraayay it's like a door is closed ma fahamtay kan halkan ku yaala ma haddada kan muujeedaa haddaan kaa ka qaado muujeedaa xarafku waa furan yahay wuu furan yahay laakiin markaan diida ku daro xarafku wuxuu noqonayaa diida haddaan ku daro xarafku wuxuu noqonayaa mid xiran marka mid xiran waxaan ka wada saas oo kale waa mid xiran sababtoo haddaan diidaanay aan uga dhigno irid uga dhigno that means kanjeeladu way xiran tahay sababa xarafkii oo maxaa iraahdaa vowelka waxaad xiray kan baa xiray
ma fahanteen marka waxa xarafka markuu furan yahay erayada haddaa firis kan ugu dambeeya hadduu shaqal yahay waxa weeyaan waa open way wuu furan yahay waxaad ugu akhrinaysaa sidii shaqal dheere ayaad u akhrinaysaa ma garatay marka kaasoo kale hadda mujeedaa da mujeedaa waxaad u akhrinaysaa sida xaraf dheer aad u akhrinaysaa waana furan yahay geedka macnaha geedka wuu furan yahay damirkan jeeladu way furan tahay soo ma hadda dii baan ku daray waan xiray hadda now is close now waa furan yahay open weeyaan now is close ma fahantay now is open now is close saasaan rabaa inuu ku baro marka uu open yahay waxaa loo akhrinayaa shaqal dheere markuu xiran yahayna oo close yahay waxaa loo akhrinayaa shaqal gaab ayaa loo akhrinayaa xarafka akhriskiisa wuu isbedelayaa intaas ayaan ka waday maxaa idhahdaa xirnaan iyo furnaan hadda kan fiiriya kan waa maxay iida wax maa ku xiran maya daad is shaqal dheere waana maxay waa wuxuu noqonayaa open sababtoo ah waxba kuma xirna halkan soo ma jeeda waxba kuma xirna waa saas kun dad inta wuxuu noqonayaa there air do you hear the air ma jeeda there hadda maxaani dad maxaa maqlaysa dad dad d-a-d dad inta waxaa maqlaysa there d-a ma jeeda sida waxaan marka lagu dhahay xataa waxaan markuu xarafka furan yahay waxaad ugu dhawaaqay is own name maxaa laga wadaa mataqaanaa markaad akhrinaysa e i o u sida aad u akhrinaysid ayaad halkan ugu akhrinaysaa d-a-r-e there mujeda a and e sida halkan aad ugu akhrinaysa alfabeetada ayaad u akhrinaysaa I hope walaalaha inaad fahanteen insha allah wax adag ma aha insha allah mar haddaad fahantid ma aragtaa wax oo macna dhib badan ma marka halkan waxaad maqlaysaa there why there lagu akhrinayaa halkan wax kuma xirna wuu furan yahay ma garatay waxaad fiirinaysaa mar walba xarafka ugu dambeeya haddaani wax ku soo xirnayn that's waa open waxaad u akhrinaysaa is own name alphabetada maxaa ka wadaa is own name markaad akhrinaysa a e i o u dhawaaqaas aad maqlaysid ayaad ugu dhawaaqaysaa laakiin markuu xiran yahay dhawaaqa completely wuu isbedelayaa insha allah ogaada marka insha allah aanu ku dheeraan insha allah dad waxaad maqlaysaa there maxaa maqlaysaa a halkan maxaa maqlaysaa e halkan del mujeda del ma maqlaysid laakiin del macnaha e del mujeda halkan there e d e l laakiin maxay noqonaysaa del laakiin waxaad maqlaysaa not aad maqlaysa like I oo kale del laakiin waxaad maqlaysaa ina d i l inay too kale aad maqlaysaa halkan ereygan bana aragno desert right aynu aragno hadda xarafkaana muxuu yahay syllabalkiisa inta badan waxaad arkaysaa markay laba xaraf oo isku eg aad ku aragtay ingiliishka syllabalka waxay kala jibinta sida loo akhrinayo halkaas buu ka kala jeebay staas ayuu kala bartamaya ma garata so des hal dhawaaq buu leeyahay sert hal dhawaaq buu leeyahay marka halkani marka la kala jibiyo kan wuxuu noqonayaa mid xiran kan wuxuu noqonayaa mid xiran marka dhawaaqa wuxuu noqonayaa alfabetiga uguma dhawaaqay sida meesha uu qoraya sida kale baa lagu dhawaaqaysa desert mujeda ma dhehaysa desert d marka alfabeetada la aqrinaa iida maxay tahay e laakiin halka desert like e camal aqrinaa desert mujeda tana baa maqlaysa tana e baa desert okay desert ayaa la dhahaa ma garatay marka waa saa ma fahantay saasoo kale u ogaada halkaas baa laga kala jibaa des waxay noqonaya mid xiran kan wuxuuna mid xiran ma garatay laakiin haddii halkan uu ka kala jabi lahaa halkan wuxuu noqonaya mid furan halkan mid furan laakiin ma aha maadaama had ss ay isku mid tahay dhawaaqa halkaas buu ka kala bartamaa desert waa laba dhawaaq desert laba dhawaaq weeyaan labadaa dhawaaq waxaa garanaysa carabkaaga hoosgel ama gacanta desert marka dhawaaqa gacanta saa tira desert ma jeedaa taasaa gona syllable kala jijibintaas uu kala baxayo ayaa lama garkaaga hoos gacanta geli akhri desert garkaaga how many time hoos u noqon inta jeer hoos u noqonayo sidaas buu u kala qaybsamaa insha allah walaalahay okay kana waa garateen dhacdhac kana waa xiran yahay kana waa mid xiran markaad ku dhawaaqayso waxaad ugu dhawaaqaysaa
ugu dhawaaqaysa like e desert like you know xarafka e desert like saas ugu dhaqaaqa not e here dirt maxaa maqlaysa dirt earth ayaa ma maqlaysa I dirt maqlaysa e sababta I marka I loo aqrin muxuu noqon lahaa dirt uu noqon lahaa laakiin maya dirt like camalaad u aqrinaysa anikan y wuu xiran yahay insha allah I hope inaan arag mid okay now kan wuu furan yahay dime wax maa ku xiran maxaa qalaysa dime I'm mujeda ayda and eedu sida ugu lagu qoran yahay oo dhawaaqa marku dhawaaqa caadiga alphabetic sida loogu dhawaaq ayaa loogu dhawaaqayaa dime I'd hear the I and you hear the e dime mujeda dime like inta badan dime marka la akhrinayo ereygan lamaba akhriyaba waa dim ereyga ugu dambe always was silent lama akhriyo dime waa dim this becomes silent laakiin maadaama intii ku qoran yahay wuxuu noqonaya waa xaraf furan weeyaan xaraf furan waxaa loo akhriyaa dime it's like inuu dheer yahay shaqal dheer oo kale loo akhriya dime gaste marka loo akhrinayn waxaa loo akhrinayaa sida alfabeetad loogu dhawaaqayo ayaa loo akhriyaa dime dime here dime okay halkan done mujeda don done ida waaba silent idaasi lamaba akhriya marka ingiriiska la akhrinayo xarafka ida ugu dambeeya iyo oo vowelka ugu dambeeya lamaba akhriya inta badan marmar maahan inta badan lama akhriya insha allah marka here door mujeda door or it's already waxa weeye long vowel asaga kan door okay dust haddii u da loo akhriyo wuxuu noqonaa dust uu noqonaa dust laakiin now is dust you heard the why ma aha xaraf furan ma wuu xiran yahay dust hadduu furnaan lahaa oo inta wax raaci lahaa dust camala loo akhri lahaa halkan dude mujeda uda waad maqlaysaa mujeda dude mujeda uda waad maqlaysaa sida xarafka alfabeetada loogu dhawaaqaya ayaa loogu dhawaaqaya dude insha allah walaalaha inaad fahanteen casharka insha allah aan halkana baan soo hal mar dad dare del desert dirt dime done door dust dude marka walaalahay khayr caafimaad baa idin rajeynaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu